Horraanta bisha Sebtembar ee sanadkan 2022 ayaa la filayaa inuu suuqa soo galo iPhone 14, taleefankii ugu qaalisanaa abid iyo moodalkii ugu dambeeyay ee shirkadda Apple. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kulanti wanaagsan saaxiibayaal idil ahaantiinba meel walba dunida aad ka joogtaan. Kusoo dhawaada muuqaal cusub. Horraanta bisha Sebtembar ee sanadkan 2022 ayaa la filayaa inuu suuqa soo galo iPhone 14, taleefankii ugu qaalisanaa abid iyo moodalkii ugu dambeeyay ee shirkadda Apple. Shirkadda Apple ee soo saarta noocyada kala duwan ee iPhone-ka ayaa shaacisay inay dhammaystirtay diisaynka taleefankeeda cusub ee iPhone 14. Taleefankan ayaa ku soo bixi doona 4 nooc oo kala ah: iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max iyo iPhone 14 Pro Max. Muuqaalka taleefankan wax badan kama duwana taleefankii hore ee iPhone 13 oo hadda la isticmaalo marka laga reebo tayada kaamirada, qaadka bateriga iyo size-ka. Updated line would then consist of the iPhone 14, the iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max, and finally the iPhone 14 Pro Max. iPhone 14 iyo iPhone 14 Pro ayaa noqon doona 6.1 inji, halka iPhone 14 Pro Max iyo iPhone 14 Max ay noqon doonaan 6.7 inji. Qiimaha taleefankan ayaa dalka Mareykanka lagu kala iibsan doonaa iPhone 14 Pro Max $1,999, iPhone 14 Max $1,100, iPhone 14 Pro $1,099 iyo iPhone 14 $999. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Channelka subscribe saar. Mahadsanid.